Masar iyo Ethiopia oo qarka u saaran in gudaha Soomaaliya ay ku dagaalamaan kadib markii labada dhinac maanta hadallo hanjabaado ah ay habada isu mariyeen. Ethiopiana waxay iska fogeysay in ciidankeeda maalinimadii shalay ay ka qayb galeen dagaal ka dhacay degmada Doolow ee gobolka Gedo. Wararkii ugu dambeeyay ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa. Soo dhawaada saaxiibayaal, Cumar Guuxayaan ahay. Ethiopia war saxaafadeed ka soo baxay oo arrimo dhowr ah looga hadlay ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa. Haddii uu muuqaalka soo gaaro share garow saaxiibadana la sii wadaaga qaybta hoose ee faaladan aragtida nagula wadaaga. Mar kale soo dhawaada saaxiibayaal, aynu ku bilownay maalinimadan maanta ah ilaa iyo shalay waxaa socday hadal haynta ah in ciidamo Ethiopian ah ay weerar ku qaadeen ciidankii dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ee ku sugnaa qayb ka mid ah Doolow. laakiin waxaa la tilmaamayaa oo wararka soo baxaya hadda ay sheegayaan in Ethiopia ay arrintaasi ka hortimid kuna tilmaamtay warar been abuur ah oo looga gol leeyahay in meel looga dhaco sharafta ciidamada nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya ee Ethiopianka ah ee maalmihii la soo dhaafayna xuduudda labada wadan ee Soomaaliya iyo sidoo kale Ethiopia soo dhaafayay. Arrintan ayaana timid iyadoo wafdi ka socda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ku sugan yihiin magaalada Addis Ababa ee caasimadda wadankaas, kulamo u dhaxeeya dhinacyadan ay ka socdaan gudaha magaaladaasi. war-saxaafadeedka waxaa lagu sheegay in ciidamadaasi Ethiopianka ah ee gudaha Doolow ku sugan marna aysan ka qayb galin dagaalkii shalay ciidamo ka tirsan kuwa Jubbaland iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya ku dhexmaray magaalada Doolow ee gobolka Gedo. waxaase la sheegay in Ethiopiana aysan qayb ka ahayn dagaalkaas ciidamadeeda. war-saxaafadeedka waxaa sidoo kale lagu sheegay in arrimahaasi iyo sidoo kale propagandadaasi oo dhan ay faafinayaan gacan saddexaad oo doonaysa in ay carqaladeyso heshiiska iyo sidoo kale nabadda ka dhaxaysa labada wadan ee Soomaaliya iyo Ethiopia. sidoo kale war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in gacantaasi saddexaad ay doonayso inay ka hortagto in Ethiopia ay markaasi ganacsi dhinaca waliba badda ah ka hesho dowladda federaalka Soomaaliya, si gaar ah badda cas. dowladda Masar si gaar ah wasiirada arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo Masar oo dhawaan isgarab taagan ayaa daqiiqado ka hor sheegay in labada wadan ee dowladda Soomaaliya ama Soomaaliya iyo sidoo kale Masar ay xiriir wada shaqeyneed oo aad u xoogan ay leeyihiin yeelana doonaan. sidoo kale se wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Masar ayaa sheegay in marna aysan Ethiopia bad ka heli doonin ama qayb ka mid ah badda Soomaaliya aysan heli doonin, loona ogolaan si loo markaas halkaas looga saaro faragelinta iyo wax kasta oo ku saabsan dowladda Ethiopia ay ku hayso gudaha Soomaaliya. labadan hadal ayaa isdiidan, labada wadanna waa laba wadan oo is ilaashanaya oo waliba cadow isu ah kadib markii ay isku dagaaleen webiga Nile oo labadoodaba markaasi ka dhaxeeya. Ethiopiana ay sheegtay in biyo xireen ay ka sameynayso. arrintaas ayaana ilaa iyo hadda taagan. dowladda Soomaaliya horay ayay u sheegtay inay dhexdhexaad ka tahay labada siyaasadood ee labada dowladood ka dhaxaysa, laakiin waxaa hadda soo ifbaxaya in dagaalkooda uu soo wareegay gudaha Soomaaliya oo ay isku haystaan. Ethiopia waxay qayb ka noqon doonaa ciidamadeeda howlgalka soo socda ee AWSOM lagu magacaabo. dowladda Masarna isla sidaasi oo kale horay dowladda federaalka Soomaaliya waxay u sheegtay in gabagabada bishan December ee aynu ku guda jirno Ethiopia ciidamadeeda laga saari doono gudaha Soomaaliya. laakiin heshiiskii Ankara kadib waxaa soo baxay warar ku saabsan in Ethiopia ay qayb ka noqon doonto howlgalka cusub, sidoo kale ciidamadeedu ay nafta u hureen maalka iyo hantida ummadda waa hantida iyo sidoo kale nafta ummadda Soomaaliyeed ayna joogi doonaan gudaha Soomaaliya. haddaba ma dhici kartaa in labadan dowladood ay ku dagaalamaan gudaha Soomaaliya, sidoo kalena dowladda Soomaaliya aysan ka warqabin qatartaasi weyn ee waliba halista ah ee ku soo wajahan dalkeena Soomaaliya, iyadoo dadka qaar ay sheegayaan in labada wadanba ay tahay in laga saaro howlgalka cusub, halka kuwa kale ay aaminsan yihiin in Masar ay tahay dalka kaliya ee Soomaaliya lagu soo dhaweyn karo ciidamadeedana ay joogi karaan. Ethiopia isla sidaasi oo kale dowladda Soomaaliya madaxdeeda ugu sarreysa horay waxay u sheegeen in labada cadow ee Soomaaliya ay leedahay ay yihiin Al-Shabaab iyo sidoo kale Ethiopia. wallow markii dambe heshiiskii Ankara ka dhacay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isla isagii uu sheegay in Ethiopia ciidamadeeda ay nafta u hureen sidii Soomaaliya ay xor u noqon lahayd.